السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعنا وناكسن صاحبة كحران channel كصحن صح برودكشن aad baan idin salaamayaa jibca wanaagsan hami wanaagsan ayaan leeyahay waxaan ka soo salaamayaa dalka midowga Soomaaliya caawa waxaan ku suganahay Muxiidiin Amaana oo xarunta elektarooniga magaalada Gaalkacyo oo dabcan moobilada iyo waxyaabaha kala duwan aad ka helaysaan doo ibraahim ka noqdo saaxiibadeeda sida hore aad ku aragteen muuqaalka hordhiciisa waxaan idin tusay waxyaabaha ammaana ay haydo marka Muxiidiin Amaana oo dabcan ah maamulaha xaruntan ayaan siin doonaa kalmadihiisa caawana waxa uu ku casuumayaa channelkayga anoo ku soo booqdo xaruntiisa bal wuxuu ka warbixin doonaa waxyaabaha bulshadu hayo waxyaabaha soo kordhay waxyaabaha kale asaga aan ku soo dhaweynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuhu. waan dhowahay channelka Saxan Production waan u hambalyeeyaa maadaama uu gaaray sanado badan shaqeynayay naguna soo booqday xaruntanada Amaana Electronic and Stationery Company qalabyo kala duwan oo soo kordhinay oo cusub oo dalka 2020 ka turjumaya oo ay ka mid yihiin hadda la kulmayo mobileska nooca ugu dambeeyay oo last version ah kaamirooyinka laptopska saacadaha oo kiyaalayaasha stationery qaybihiisa kala duwan oo waxa soo kordhinay waxyaabaha cusub oo hadda last version ka ugu dambeeyay waxa ka mid ah gacankan play stationka lagu isticmaalo oo baagshayga loo yaqaano oo mobileska ah waxa ka mid ah midan iyadana loo isticmaalo oo TikTok-ga oo live-ka oo leerkeedii wadata oo waxyaabahaas oo dhan waa keenay maadaama Gaalkacyo hadda TikTok-ga aad looga baranayo dadka ayaan ku dhiirigelinayaa si ay u isticmaalaan waxa la TikTok dadka ku dhiirigelinaya oo leedahay inay sii wadaan Instagram-ka iyo TikTok-ga iyo barnaamijka social media-ha anaga waxyaabo badan noo faa'iideynaya waayo mobileskii ugu dambeeyay oo last version aan keenay marka waa ku dhiirigelinayaa dadka maadaama aan qalabkii galno way dad badan meeshan ku jira waxaan maleynayaa saaxiibada TikTok inay yihiin ayna ka faa'iideysan doonaan way fariinta ugu dambeysay dhalinyarada reer Gaalkacyo direysay iyo bulshada ku xiran xarunta Amaana fariinta aan u diraya waxay tahay caawa jimcaha aan kaga faa'iideysanayo Saxan Production oo igu soo booqday goobteeda ganacsi waxa ay tahay TikTok-ga iyo barnaamijka social media la isticmaalayo dhan insha Allah in khayrka looga faa'iideysto aan sida xun loo dhigin intaas aan kaga faa'iideysanayo Muxiidiin Amaana waa ayuu ahaa waa maamulaha xaruntan idin muuqata aad aan u maasantii saaxiibadeeda jimcaha wanaagsan.